بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalyaal waxaad kusoo dhawaataan xalqadihii koobnaa ee aan uga hadlaynay sidaan uga faa'iideysan lahayn bisha Ramadaan ee barakaysan. walaalayaal, si uu soonkeenu u noqdo soon sax ah oo ilaahay raalli uu ka yahay, soonku wuxuu leeyahay aadaab buu leeyahay. aadaabtiisa waa in la ilaaliyaa. aadaabta soonka marka waxaan u qaybinaynaa laba qaybood. qaybta hore waxaan kusoo qaadanaynaa yani al-aadaabu alwaajiba lisiyaam, aadaabta waajibka ah ee qofka sooman ama soonka loo doonayo. walaalayaal, qof walboo sooman waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo wax alle wuxuu ilaahay subxaana watacaala isaga uu waajib kaga dhigay. waxyaabihii ilaahay uu waajib nooga dhigay inaan ilaalino, oo ay ugu horeyso salaada oo waqtigeeda lagu ilaaliyo, jamaacadana lagu tukado, masaajidana lagu tukado. marka wax walbo waajib oo ilaahay dusheena saaray inaan ilaalino aadaabta soonka ayay ka mid tahay. maxaa yeelay salaadu, walaalayaal, waa tiir ka mid a tiirarka islaamka ah, oo weliba lagu ilaaliyo shuruudeedii iyo arkaanteedii, cilmigeedana la barto. waxay ka mid tahay aadaabta soonka ee waajibka ah. ka waran haddii qof uusan tukanaynin haddana waan soomaya uu leeyahay, gaajo unbu isku dilaya. maxaa yeelay yani tartiibta arkaanta islaamka, shahaadateyn kadib salaada ayaa ku xigta. qofka aan tukanayninna axaadiistu waxay tilmaamaysaa inuu diintaba ka baxay, man tarakaha faqad kafar. subxaan allah, inuu diinta ka baxayo. marka salaada horta in la ilaaliyo, waqtigeeda lagu ilaaliyo ayaa maaragtay aadaabta soonka ka mid ah. jamaacadana lagu tukado oo masaajida la yimaado. waxaa ka mid ah sidoo kale aadaabta siyaamka ee waajibka, in qofka sooman uu ka fogaado waxyaabaha ilaahay uu xarimay. haddii noqon lahayn wax lagu hadlo ama wax la sameeyaba, waa inuu ka fogaadaa beenta. waa inuu ka fogaadaa beenta oo ah, of course, yani ujeedada beenta waxaa loo jeedaa yani alikhbaaru bikhilaafi alwaaqic. qofka wax aan jirin inuu dadka u sheego oo been uu sheego isagoo sooman, xaaraan weeye. maxaa yeelay beentu waa shay lagu naar tago wey. ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar buu yihi nabiga alay slat slam. beentu faajirnimay kugu hanuunisaa, faajirnimadana naar bay kugu hanuunisaa. beenta in laiska ilaaliyo. tan labaad, xanta in laiska ilaaliyo. walaa yaktab bacdukum bacdan buu yihi ilahi subxana watacaala. tan saddexaad, namiimada iyo dadka isku dirkooda iyo dadka in fidno yani dhexdooda laga sameyo in laiska ilaaliyo. aadaab yani waxa weeyaan waxyaabahaas oo dhan wax fasahaadin kara soonkaagi weeye. ma aragtay yani warka badan iyo oo maalayacniga ah oo runtii iska maanta o dhan qofku uu hadlayo aan qiimaha lahayn in laiska ilaaliyo, oo qofku uu maaragtay ku bedesho yani waxyaabahaas oo dhan wax ka khayr badan oo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba u fiican, hadday noqon lahayd dikri ilaahay iyo qur'aanka akhrintiisa iyo wixii la mid ah. marka aadaabtaasi waajibka waa inaan sidaas aan u ilaalinaa. hada wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.